halkaad warkaasina kala socotaan daawadayaal waa istuudiyaha Somali Cable uu ku leeyahay magaalada London. haddaba inta badan warkeena qaybaha ugu dambeeya waxaynu idinkugu soo gudbinaa wararka caalamka ay wax ka qoraan warbaahinta ee ku saabsan arrimaha la yaab kale ee dunidan ku soo kordha. haddaba yaanyuur ayaa lagu soo waramayaa ku sugan wadanka Jarmalka inay leedahay shaqaale tiradoodu ay gaarayaan ilaa 100 qof oo iyada u shaqeynaya. waxay soo kale yaanyuurtan ama mukulaashan marka ay doonayso inay safarto ay ku safartaa diyaarad iyada u gaara. haddaba maxay ku dhacday arintan? nin u dhashay wadanka Jarmalka oo lagu magacaabi jiray Karl Lagerfeld oo ahaa nin markaasi isagu sameeya dharka iyo waxyaabaha kale ee la qurxiyo oo aad markaa lacag u lahaa ayaa la sheegay inuu geeriyooday bishii February ee la soo dhaafay sanadkan 2019. ninkan daadiisa ayaa waxaa la sheegay inay gaaraysay ama uu ku dhintay 85 sano. lacagta uu haystay ninkan ayaa waxaa la sheegay inay dhamayd 200 milyan oo dollarka Mareykanka ah. ninkan wadanka Jarmalka u dhashay lagu magacaabo jiray Karl Lagerfeld ayaa weligiis isagu aan guursanin wax qoysna aan lahayn, balse inta aanu dhiman ka hor ayaa la sheegay inuu dhaxalka lacagtiisa uga dardaarmay yaanyuur uu isagu lahaa oo uu soo korsaday. yaanyuurtaasi waxa ay jirtaa 7 sano waxaana magaceeda lagu magacaabaa Chopet. waxa ay leedahay bog Instagram-ka oo isagu u sameeyay oo ay ku jiraan 230,000 oo friend ah. waxaa sidoo kale la sheegay in ay iminka dhaxashay lacagtii dhammayd 200 milyan oo dollar. haddaba dowladda Jarmalka iyadoo ka duulaysa dardaaranka ninka lacagta iska lahaa ayaa waxa ay samaysay in ay shaqaale u qabatay yaanyuurtaasi oo gaaraya ilaa 100 qof kuwaas oo ka shaqeynaya guriga, cuntada iyo waliba adeegyada kale ee iyadu ay u baahan tahay yaanyuurta. yaanyuurta ayaa la sheegay inay caadiyan hurdada ka soo toosto subaxii 6 iyo barka. waxaa la sheegay in ilkaheeda iyo sida ay markaasi cuntada u cunto intaanay cuntada cunin ka hor shaqaale gaara ay leedahay oo ilkaha u nadiifiya. kadibna waxaa la sheegay in cuntadeeda la siiyo. cuntada la siiyo ayaa waxa ay yihiin inta badan cuntada laga keeno dhinaca badda malayga salamoonka loo yaqaano iyo cunooyin kale oo aad markaa fitamiinkooda loo kordhiyay. shaqaalaha waxaa ku jira qaar ka mid ah dhaqaatiir la sheegay in ay la soconayaan xaaladeeda caafimaad. waxaa sidoo kale ay leedahay shaqaale kale oo guriga uga shaqeeya goobaha ay seexanayso iyo sida loo nadaaminayo. waxay sidoo kale dadka ay aad ula yaabeen marka ay doonayso inay safarto ama shaqaalaheedu ay u gartaan inay safriyaan oo ay dalxiis u kaxeeyaan in lagu qaado diyaarad gaar ah oo iyadoo iminka ay leedahay. waa diyaaradii uu lahaan jiray ninkii caanka ahaa ee lacagta lahaa ee Jarmalka Karl Lagerfeld. waxaana ay yaanyuurta ku duushaa diyaaradaasi keligeed iyadoo diyaaraddu ay leedahay shaqaale gaar ah cunadana loogu keenayo meesheeda. haddaba adduunka ayaa waxaa la sheegaa in qofka waxa uu ka dardaarmo dowladuhu ay sidee tahay u fuliyaan. haddaba yaanyuurtan ayaa la sheegay in iminka ay tahay midda ugu hantida badan inta la ogyahay yaanyuuraha dunida ku nool. sidoo kale waxay ka hanti badan tahay dad badan oo dunida ku nool. رغم أن حوله الكثير من الفاتنات لكنه غير متزوج وليس له ولد. تركته تقدر ب200 مليون دولار. من سيرثها إذا لم يكن لديه عائلة؟ لديه قطة بيضاء يحبها اسمها شوبيت، عمرها 7 سنوات، كانت أهم البنود في وصيته. البحر الأخرى وتشرب المياه، وهذه صورتها عندما تشرب المياه المصفاة بالكربون. لديها حارس شخصي وطباخ وعاملان يخدمانها ويعدان لها الأكلات الطيبة، وهي تسافر على طائرة كارل لاجرفيلد الشخصية. warkii oo aad kala socoteen istuudiyaha Somali Cable uu ku leeyahay magaalada London
nageynta anigoo cabdiqaadir nadaara ayaa idinla socodsiinaya inta aan mar kale kulmayno warkan lamid ah sidaa iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. guuleed real estate waa shirkad Soomaaliyeed oo guryaha iibisa xarumana ku leh magaalooyinka Ankara iyo Istanbul ee wadanka Turkiga. shirkadda guuleed real estate waa shirkadda kaliya ee Soomaaliyeed ee si sharciya loogu ogol yahay inay guryo sharciya ka iibiso. guryaha ay shirkaddan hayso waxay isugu jiraan kuwo filooyin ah loogu talagalay qoysaska kaligood inay ku noolaadaan. sidoo kale shirkaddu waxay ka iibinaysaa guryo falaadyo ah ama dabaqyo ah oo aad ka iibsan karto qaybta aad doonayso 2 qol, 3 qol ilaa 4 qol. guryaha ay shirkadda iibinayso dhammaantood waxa ay leeyihiin meelo caruurta ay ku ciyaaraan, waxay u dhow yihiin masaajidyo iyo iskuulada caruurta ay wax kugu baranayaan. sidoo kale waxa ay ku dhow yihiin maqaayadaha Soomaalida iyagoo ku yaala bartamaha magaalooyinka lagaaga iibinayo guryahaasi. haddaba waxa ay shirkaddu ka caawinaysaa haddii aad ka iibsato guri adigoo jooga gudaha waddanka Soomaaliya iyo meel ka baxsanba in aad markaasi ay ku soo saaraan fiisooyinka adiga iyo qoyskaaga si aad markaa guriga aad iibsatay ugu noolaato. haddaba waxaa halkaasi kugu soo dhaweynaya gudoomiyaha shirkadda Farxaan Maxamed Doore iyo Cabdifataax Sheekh Xuseen. ha moogaanin shirkadda guuleed real estate waa shirkad Soomaaliyeed oo ka shaqeysa dhismaha guryaha ee wadanka Turkiga. muhiimadda sida goonida ah macnaha u sameynaysa waxay tahay inaad halkaan ka gadan kartid guri oo qalma noloshaada ka kooban 5 qol iyo 2 fadhi, 7 qol iyo 2 fadhi oo 2 biyaana ah oo aad iyo aad ugu habboon noloshaada. laakiin fursadda cajiibka waxay tahay inaad dhalashada waddankana ku qaadan kartid 6 bari gudahood. guuleed real estate waxaan diyaar inahay insha Allah taala inaan ina tusino fursad walba oo adinka faa'iido ku jirto.